الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إله يا مهد له mar hadduu ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyey ramadaankii, ilaahay subxana wa tacala waxaan ka barinay kuwii ramadaanka laga aqbalo oo loo dimi dhaafo allah naga dhigay dhammaanteenba. bisha soon waxaan filayaa waxaa soo laalaabta su-aalo mar kasta oo mucaasira oo casrigan ah. qofka muslimka marka hore waxaa wanaagsan ikhwaani, bishan waa bil barakaysan. nabiga calayhi salatu slam wuxuu yihi man xaruma khayruhaa faqad xurim. ninkii khayrkeeda laga xarimo ninkaas uma laabno wax kaloo laga xarimin lahaa. ilahay nagama xarima khayrkeeda. saas daraaddeed soonku wuxuu u baahan yahay ilaalo, axkaam buu leeyahay. qofka muslimkan waxaa waajib ku ah inuu ogaado axkaamta soonka. soonka maxaa jibiya khaasatan, maxaa yeele macquul ma aha qofka inuu maanta dha iska soonaado wuxuu rabo iska sameeyo oo hadhowna ilaahay subxana wa tacaala ajir uu qorin. marka qof kasta markuu waxgalaya bisha ramadaanka waxaa wanaagsan inuu ogaado soonkan suu ku ansaxayaa, maxaa jibiya soonka, waxyaabaha muhiimka inuu ogaado. saas daraaddeed xalaqadan waxaan kaga hadlaynaa insha allah waxyaabaha soonka jibiya ama buriya. maxaa yeele waa muhiim qofka muslimka inuu soonkiisa ilaalsadaa, ama isagoo shaki ku jira oo iska soomaa. saas daraaddeed ayaa marka hore waxaan ku baraarujinaya inta axkaamta aan gelin in qofka muslimka uu ku dadaalo bishaan uu soomi lahaa. inaad ku fikirin saa u afuri lahayd ama soonka a furi lahayd ha ku fikirin. maxaa yeelay shaydaanka waa ku cabsiinayaa. cibaadadan oo kale oo habeen kasta naarta dadka laga xoreynayo, siduu nebigu inuu sheegay calayhi salaatu wasalaam, wuxuu rabaa inuu ajirkaas ku gafsiiyo. walidaalika qoofu kugu abuuraya cabsi. ma soomi kartid, ma yeeli kartid, soonkaaga waa jabay, soonka wax kama jiro, waa kaa buro soonka, waa iska soomantahay, waxaasuu ku leeyahy. marka soonka wuxuu u baahan yahay marka hore ilaalo dheeraad inaa ilaalisaa. maxaa yeelay waa wax adiga adduunya iyo aakhira ku anfacayo wey. ilaahi subxaana wa tacaala xadiis qudsigood u dhahayo kulu camal ibni aadam lahu ila siyaam fa inahu lii wa ana ajzi bihi, wuxuu iskugu qaas yeelay ilahi subxana wataala xikmada ku jirta. saas daraaddeed marna ha ku fikirin inaad asbaab basiid ah soonka aad iskaaga dayacdaa, ama uu shaydaanka kuu soo waxyoodaa uu ku yidhaaho ma soomi kartid iska fur. taas waa muhiim. qaybta kale ayadana oo muhiimka ah waxay tahay qof kasta dhibkiisa asaa garanayo. qof dhib kale uu garanayo ma jiro. qofka hadduu xanuunsan yahay ilaahay wuxuu siiyey ruksad inuu furo. laakiin qof kale inuu yidhaho waa xanuunsan tahay ma soomi kartid oo qof kale u hadlaa, waa qalad arrintaa. maxaa yeele qofka shaydaankiyaa kusii dhiirigelinaysa. waxaa laga yaabaa qofkan inuu rabo inuu iska soomo oo lacala allah ilahay waafajiyo, qalbigiisa kusoo riday iska soon, ajiraa helaysaa, waa caafimaadaysaa. inuu ilaahay qalbigiisa ugu ilahayna qalbigiisa wixii laga fisho helaa. ana cinda xusni cabdi dhanni bi, addoonkayga meesha u ega fisho. soonkan waa ku caafimaad haddaa aamintid, ilahay waa ku caafimaad uu kugu siinaya. marka inaad u hadashid qof aad tirahayd ma soomi kartid, qalad wey. ama aad ku ceebaysaa qof furay soonka inaad tiraahid waxaas rabaa soonka u furtaa dhihin. qof kasta asaa og axkaamta. qof kasta fardi u qabanaysaa. dadka isku itaal maaha, isku adkaysi maaha. nin kasta uu ilaahay subxana wa taala u abuuray. saas daraaddeed ra'yigaaga ha ku farleelin dadka, ama aad ku qasabtid soon, ama aad tiraahid ha soomin. labadaba dhinaca ha soomin inta badan waxay ka dhacdaa caruurta iyo waalidiintooda ka dhacdaa. waalidka wuxuu jecel yahay naftiisa saa garanayo. naftiisa inuu dhiba ma aha, oo laa yukalifna nafsa ilaa usacaha. oo naftigeeda haddaad dhibtid waa ku cadaabi, ilahay kugu dacweyneysaa. waxa waaye in calaa nafsika caleyka xaq wey, nafta xaqeeda in la sii wey. laakiin waxaa jira waalid caruurti ayaa wuxuu ku leeyahy aabihiisa ama hooyadiisa wuxuu ku leeyahy sokoraa qabtaa ma soomi kartid, hooye iska fur. naxariistii jeceelkay waalidkood u qabaan ayaga waxay ku dabaqayaan naftooda inay qofka soomi karin. saas daraaddeed dhibay isku qabaan waalidiinta iyo caruurta. gabdhaha baa u badnaadaane. hooyadeed wuxuu ku leedahay hooy anaa qarashkaa bixinaya soomin, aabbaha anaa qarashkaa bixinaya. aabbana waxaa laga yaaba inuu soomi karay. walidaalika ha u hadlin adig, aabbow ma soomi kartaa,
hooyay ma soomi kartaa ha haddii ku tiraha waxaa leeyahay tawakal cala allah ilaahay qaado hadduu dad ahlu khibro ah oo dhaqaatiir ay soo sheegeen ay yidhaaheen soonkan fasaluu ahla dikri dadka khibrada ah oo dhaqaatiirta ah oo leeyahy qofkan sokortiisa lama soomi karo qofkan keliyaha kama soomi karo qofkan uurka kuma soomi karo haddii la yidhaaho kaas oo hiqa ah oo mawthuuq ah lagu kalsoonya hadalkiisa waa la qaadana kaa laakiin dadkan caamad iska ah oo dhahayo oyo naxariis hooyo lacag ana kaa bixinayo war soonka lacag laguma bedelin karo wallahi khayrka ku jiro soonka haddaad ogtihiin malaayiin haddaad bixisaan kuma doorsataan malaayiin xataa ma guddo booskiis ma dabooli karto makaankiis ilahi subxana wataala wa an tasuumuu khayrun lakum saasuu leeyahy markuu kasoo hadlay ninkii xanuunsan ninka safarka ah inuu iska soonka ruksa la siiy inuu furo axalu an tasuumuu khayrun lakum faman shahida minkum shahra falyasum ciyaar maaha marka aayadaha qur-aanka ilahi dhahay la soomo soonkaa kuu roon inaad soontaana nii fiican wax sahlan ma ah marka ina qof aad tiraahid hooyoy aada u naxariisanayo hooyo soonka iska fur aabba soonka fur anaa lacag kuu soo diraayo war meesha lacag maaha masalada soon ma aha masalada waxa qufraan wey dimi dhaaf iyo cidqi min naara taal naara la iska xoreynaya walidaalika gabar uur leh uurkeeda ku jirana waa fiicanta xukun uura leh waa fura soonka wax kasta qof kasta isku fatwoonayo walidaalika masalada haddii waa lahaydeen qiimaha oo soonku leeyahay saas ma dhahdeen cagsigeedana nafta in la kalifo maaha mar kasta waxaa la dhaha wasad ay diintan taagantaha wasadka in la joogo ayaa la doonaya idan waxaa leeyahay marka qof kastana ha istijaabiyo waaba fiir adoo dhakhtar wax kusoo yiri ilan dhakhtarka khaasatan dadkan wadamada gaalada joogo dhakhaatiirka wuxuu leeyahay soomin soon dhan kuma ogolo maxay waaba leeyabeen soonka qiimihiis ma garanayo asaga maba kasaay soonka nin gaala wey saas daraaddeed masaladii ma aha in laiskugu naxariisa naxariis ilaah ahaya masalada in laisku adkaynayna ma aha waxaan leenahay qofka tijaabi nafaa leeda ilahay ku siiye caawa soon soonka xero saxuuro soonka soon waxaad aragtay waa wareertay waxaad aragtay kaadidii haddaa keliya lagahay kaadidii adaa ka biya u baahatay cab biyahaaga soonka furb qofka markuu xanuunsado faman kaana minkum mariidun o calaa safarin minkum mariid madaa mariid naqatay goosaa laga hayo goos waa la xanuunsatay tacbaana la naqatay waxaa u baahan tahay inaad wax cuntid ama aad fur soonka waa lagu baneeyey qofka xanuunsan qofka dhihi karta male goos lema soon u furto qofka dhihi karta male xanuunkaaga daa og waxaan hadalkaas ula jeedaa war waalidiintay caruurtaan la hadlayaa iyo waalidkiina soonka cayaar ha ugu furina hadduu dhakhtar sheegay oo yidhaah yaha soomin waa gaar la garta nuqtadaas waa muhiim soonka marka ilaalo u baahan yahay waxaa laga ilaalinaa marka hore soonka laba qayb wey ilaalo caam ah ilan soonkan looma soomin hadafkiisa ma aha ina gaaji la isku dili ma aha soonka cunto keliya lagama soomayo ogaada waxaa laga soomayaa xanta laga soomaya waxaa laga soomayaa beenta laga soomaya waxaa laga soomaya wax kasta waxaasaa arkaysaa marka waxaa la yidhaahaa soonka ayuu ajar la-aan ku dhigaya soonkan waxaa u soomaysa ina ajar heshid ama qof maanta wax xantay oo sooman lama dhahayo soonka soo qallayn lama dhahayo xugun ahaan waa kaaga dhacay soonka waa soonta maalinkaas laakiin ajir ahaana eber ku tahay waxna ajir haddaa eber ku tahay muxuu kuu taray taas waa macnaheed marka soonku waardiin ugu baahan yahay hala iska ilaaliyo waxaa la ilaalinayaa inaad cunto ka soontid aad xanta ka soomin oo aad xumaanta ka soomin oo siyaasada aad ka soomin oo maanta dhan aad lugoosma ka shaqaynaysid soonkaaga wuxuu ku tara malaha man lam yadac qowla zuuri walcamala bihi falaysa lilahi fi xaajati an yadac طacaamahu wa sharaabahu kama qaala sal alيه wasalam wuxuu le ninkaa xumaanta iyo beenta iyo shahaado zuurka aan ka soomaynin ilahay danka malo inuu cunto ka tago wax taa malaha taas waa muhiim ilaal waa kaas soonka ajirkii u naaqsiya laakiin qofku waa soomaya allah soo qallay lama dhahayo laakiin waxaa jira waxyaaba haddii aad samaysid soonka qallo lagaa rabo maalin kale inaad soo qallaysid lagaa rabo qaladaas marka qaladaas waxyaabaha soonka jibiyo waa marka oo macnawiga la arkaayo soonka waxyaabaha jibiyo laba qeybaa loo kala qaadaa wax muttafaqun calayhi waa khilaaf kama taagno nusuus qaasna oo kusoo aroortaba waxaa ka mid alaklu walshurbu waljimaac cabidi iyo cunidi iyo xaaskaaga u tagtid maalin ramadaan ah soonka way jibasaa maalin ramadaan wax cuntay waa kaa jaba soonka oo weli camdan a cunto kas a u cunto xaaskaaga u tagtay
ayadana soonka waa jebisaa taas khilaaf kama taagan waxaa kalaa soonka jibiyo gabadha hadduu xayd ku dhaco ama dhiiggi umusha ayadana soonka waa jebinaa oo sooneed waa dhashay markay dhashay dhiigaa kasoo baxay umul ah waa furtaba soonka waa jabay ama caadadii ku dhacday salaadii maqribkii oo 5 daqiiqa ka dhiman tahay ayaa caadada ku dhacday soonka waa ka jabay waa soo qalaynaysaa ajirkeeda ma leedaha ajirkeeda waa leedahay laakiin qaladii maalinkaas waa la rabaa taas waa inaa ogaataan waxyaabaha la isku waafaqsan yahay waa ka sidoo kale waxaa nusuusta ku soo aroortay oo waafiq la isku waafaqsan yahay ninkii isma tajiya oo far isgeliya macaday maalin ramadaan isma tajiya soonka waa ka jabaa waa ficil isaga sameeyo ama mataga hadduu kusoo qasbado soonka kaama jabo waa iska xanuunsato waa laboto waa matagtay adiga iskama keenin soonkaaga waa wadanaysaa taasna khilaaf kama taagnay waxyaabaha oo marka su-aalaha soo naqnaqdo ayaa raba halka inaan wax ka sheega marka oo ah mar kasta dadka weydiyaan waana waxyaaba mucaasir wey waxa weye masalooyinkaasna waa la isku khilaafsan yahay fuqaada xaqiiqatan laakiin qowlka aan la raajixiyo waa mar kasta qowlka ilaahay subxaana watacaala uu sheego waa yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra masdarkeeda maqsadkeeda diintan dhanbo ilaahay subxana wataala dad inuu ku adkeeyo uguma talagelin ilaahay wuxuu rabaa inuu wax nii fududeeyo diintan xaraj ma laha saas daraaddeed markii wax la tarjiixinayo qoolalka la tarjiixinayo qowlkaasaa markaas la tarjiixaya nabiga calayhi salaatu wasalaam maa khuyira bayna amrayni ila akhtara aysarahuma aw kama qaal maa lam yakun ithm ma laba arrin markay timaado nabiga alayhi salam kan khafiif u qaadinayo marka ilan ilaahay xikmadda uu ku leeyahay ma aha inuu dadku adkeeyin oo saa qur-aanka sheegay ilaahay cusri lama rabo hadday saas tahay marka masaalooyinka mucaasirkaa imaanayna marka masaalooyinka mucaasirka waxaan idhi fuqahadu isku khilaafsan lakin qolka raajixan sheegayna mar kasto waxaan soo qabanaynaa masalada ugu horeyso aan soo qabanayna waxay tahay waxyaabaha caafimaadka loo qaata ramadaanka qofaa xanuunsan mathalan cirbida u socoto cirbida ama ha ahaato tansinta lagaga daro ama ha ahaato cirbida insuliinka ah oo caloosha lagu suraayo oo lagu shubo caloosha korkeeda la iskaaga mudo marka si sokorta ay level garayso mas'aladaas waxaa lamid ah sidoo kale mas'alooyinka mucaasirkan ka hadlaya dadka aad ugu baahan yihiin waxaa soo galaya daawo indhaha loo soo qoray indhuhu ku shubaa subax kasto galab kasto ku shubaya ama daawada dhegtaa loo soo qoray asoo soomanoo dhegta ku shubaya ama daawada sanka loo soo qoro sanka ku shubaya mas-uuliyiinka mucaasirka wey ama dhakhtar uu leeyahay waxaa la geliyey castrig waxbaa laga baara tubaa la gelinaya maalin ramadaan ayaa ballantiis ku soo aaday tubo in la geliyo ama waxaad tidhahaa gabadhii ayaa dhakhtar lahoo fiisita hoosa baa wax laga gelinaya ama qofaa kaadi ku ceshoontay nin rag ah ama dumar ah tubbaa la gelinaya qubulkii ama duburkii waxbaa laga soo bixinaya waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha mucaasirka wey axkaamteeda markaad fiirisid khilaafaa ka taagan khilaafka culammadana wuxuu noqonayaa mar kasta markaad fiirisid soo aruuriyey khilaafka wuxuu noqonayaa gudaha aljoof maxaa loo yaqaana joofka macnaha joofka la isku haystaa macnaha waxa gudaha gaara soonka buriyo macnaa cunada qiyaasan cala aطacaam cunada markii la cuno calooshay tagtaa gudahay ka gashaa gudaha wixii gala soonka waa jibisaa dhiiri cabintii biyaha la cabay guduhu galay marka gudahow macnaha gudaha la isku hayaa khilaafkaas marka qolka raajix waan sheegaynaa iyo xukunka ay tahay kow mas'alada ah khilaafka joofkana hadda kama bilaaban soonka liimaan fuqahada xataa waxay isku haystaan markii juruuxda laga hadlaayo xukunka ay kala leedahay markii qofka muwadaxa ay yaqaanaan jaa'ixa jirto fiqiga mustalaxaad uu leeyahay macnaa nin midii la geliyey mididiisa gudahay may tagtay ilaa gudaha halkee loo yaqaanaa caloosha laga geliyey caloosha gudahay u duleeshaa gacanta markii laga geliya gudaha uma duleesha masale iska caama waay laakiin khilaafkaasaa keena marka in la isku khilaafo mas'alada kow waxaan ka bilaabaynaa marka masaa'ilka casriga ah waxaan ka bilaabaynaa cirbadda cirbadda laba nooc wey midna waxaa weeye waa kuligoosoo
xididka laga qaataa waa dadka isbitaalada jiif wallahi tacbaan wey ama dhiiga lagu shuba ama sokor waxa lagu shuba nafaqa lagu shuba cirbadaas oo xididka la gelinayo khilaaf kama taagno soonku waajibisaa ninkaas ma baxnuunsay nin faleeba laga suray nin xanuunsan waa kaas soonku inuu iska furay ahayd laakiin hadduu jiraa waa soomi karaa ama asbaab kale loo geliyey asbaabaha badan oo soo caafimaad qaba waxa soonku waa ka jabaya maxaa yeelay waa nafaqa jirka gaartay xididka iyo gashay xididkana dhiigoo la socdaa dhiiggana jidka guduhu gudbina ama cirbidahan kale oo sentiles kaaga daro ama oo talaalka lagu talaala ama aan calooshii iyo insuliinka iskaga marto soonka ma jibiyaan maxaa dhac joofka kuma gaarin gudaha ma gaarin gudaha waxaa la dhahaa wixii jirkaan dhaafo gudaha u dhaadhaco wixina gudaha uma dhaadhicin waxaa lagu shubay laakiin gudaha ma gaarayaan saas daraaddeed khilaaf iidana masaladaas soonka ma jibiso qolka raajix way soonka cirbadaas ma jibiso maxaa yimid daawada isha lagu shubo daawada isha lagu shubo soonka ma jibiso iidana maxaa dhacay tulaalka inta isha lagaga shubayo gudaha ma gaarayso dhagta sidoo kale waxaa laleeyahay xataa cilmi طibiga waa ogolyahay arrintaas haddii fuqahadeen hore xataa qaarkood ay waajibinaysa dhahayeen hadda gudaha maxaa u furan qofka bini aadam iskaa in la saara la sheegaya wax say kala yihiin iyo xuduudda u kala furan yihiin iyo taadka u dhexeeya iyo maraaxilka maraayan waxna waa la yaqaan saas daraadeed dhagaha ayada haddii daawada lagu shubo iyadan saddexda waqti waa ku shuban kartaa soonka kaama jibiso dabcan masaalooyinka madaahibta markaa fiirid madhabka shaaficiga ugu waasacsan joofku wuxuu leeyahay wax kasta oo gudaha xataa dhegta wixii gaaray madhabka shaafici wuxuu ku leeyahay waajibisaa laakiin madaahibta kale ayaa qolkooda la rajixiyaa mar kasta idan waxaan yidhi ishi ma jibiso daawada lagu shubo dhegta ma jibiso laakiin sanka waa jibiyaa sanka laba xaala waa daawooyinka lagu shubo hadday yihiin mid hawo la jiidayo sidii waxa muxuu ahaa intaa gacanta waxaa marisay masaajka aad tiri kaasoo kale soon ma jibiyo maxaa yeele saa'il maa wax dareera ma aha laakiin hadday wax biyo ah lagu shubaayo wax biyo lagu shubaayo oo adhaysa oo intaa ka dhaminaysid walidaalika sanka waxaa la yidhi wixii lagu shubo intaa laga dhadhamiyaa walidaalika xataa ilmaha markay dilqayaan ama qofku markuu mataka ka bato waxaa laga yaabaa caloosha wixii ku jira sanka inay kasoo baxaanba halkaas waxaad marka inay isku furan yihiin sanka iyo afka iyo caloosha inay isku furan yihin waa caddaa marka saas daraaddeed haddii wax qoyaan ah oo ku shubtid soonka waa walidaalika xadiiska nabiga alayh salam wuxuu ahaa وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما وكما قال صلى الله عليه وسلم wuxuu leeyahay qofku waxaa la rabaa marka weysada waxaa sunankeeda kamid a bacda madahibni waajib ka dhigeenba in la jiido sanku daras la sameeyo wuxuu ku leeyahay qofku inuu si fiican u jiido biyaha oo qaad ilaa hadduu sooman yahay layiri saas u dhahay xadiiska nabiga alayh salam hadduu sooman yahay waxaa laga yaabaa biyaha sanka ku fakad inay gudaha galaana laga yaaba saas daraaddeed maadaama soonka marka daawada sanka way jibinaysaa iyadana waa qaata maxaa soo haray masalada kale xigta waxay tahay ayadana min kastrigta qofka laga baara tubadii qofka la gelinayo tubada hadday nal leedahay oo nalkaas keliya lagu soo ifiyo oo lasoo bixiyo soonka ma jibis dabcan madhabka shaafici waa jibinaysaa maxaa yeele asaga wax kasta joofka gaaro uu leeyahy laakiin halkan masale saas maaha saa'ilaa la rabaa maxaa yeele tubada nalay wadata laakiin tubada haddii daawo lagu daray mararka qaarkood daawaa lagu shubaa daawada ama waxaa la marayaa meeshaas si ugu iftiiniso haddiiba daawo saa'il ay caloosha tubada geli soonku waajibisa khilaaf kama taagreeda maxaa yeele tubo kaligeed maaha ama tubada kaligeed ay tahay xataa madhabka abi xaniifa wuxuu leeyahay xanafiyadu waxay qabaan tubada kaligeed wax ma jibis maxaa dhacay waxay shardi ugu dhigaan wixii caloosha galayo inay kusoo haraan laakiin wax weli darafkooda kale banaanka yaal soonka ma jibay dhahay idan masaladaas hadda maxaa cadaaday idan dadka mindaarka haddii daawo lagu shubayo oo daawadaas meesha si howsha u qabato ama wixii lasoo ogaalahay u kala cadayso hadday saas tahay soonka waa jibinaysaa hadday laakiin nal iska tahay keliya oo daawada tubada kaliya ta soonka ma jibinayso waxaa lamid ah gabdhaha fiisitada laga qaadaya iyagoo oo sooman farjigeeda la fiirinaya waxbaa la gelinaya waxaas haddii wax daawo la geliyo daawadaas dabcan khilaafa masalada ka taan waan sheegnay qowlka raajix waa inay jibinaynin qowlka raajix waxay tahay ama haddii saa'il la geliyo wax lagu soo shubo meesha waa maxaa yeele culamaa tib waxay leeyihiin masaalikada oo ragga iyo dumarkaba cawradooda ama qubulkooda
ma u doleelo gudaha ay qabaan waa kala xiran yihiin oo ama uu tolay waxbaa waa kala xiran yihiin maadaama ay gudaha u daleelin qolaan dhahay wax ma jibiyo laakiin qolka mar kasta waxaa wanaagsan lahayo haddiiba wax lagu shubaayo waxaas shubhay keeni karaan oo wax daawo lagu soo shubay soonka waa ka jabaysaa ama tubo kaliga la geliyey ama iskaan laga soo saaray kaasoo kale wax ma ka dhibayo soonka ma jibinayo masalada kale oo iyadana waxay tahay dhiig la iska qaado black testa leedahay waxaa dhiiga laga qaado dhiigga qaadida soonka ma jibisa ayada sidaas dhiigga qaadida soon ma jibiso walidaalika ibn cabaas qolkii laga soo wariyey oo dhahayay madkuulaad wax galo ayaa jibin wax soo baxay ma jibiyaan soonka waxa galo caloosha iyo gudaha galo joofka galo ayaa soonka jibi mahane wax soo baxo ma jibiyo marka walidaalika dhiig waa soo baxay dhiig hadduu soo baxayne marka soonka ma jibiyo wax soo baxay walidaalika asxaabta dagaaladii fatxu maka iyo qaswatu badr kulli waxay galayeen ramadaan marka qasab waa dhaawac waxaas uu gaarayay dhiiga ka baxayay marka qof la yiri soonka furna ma jira ama qalay nacam walidaalika dhiiga marka laga qaaday xataa haddii dhiig badan lagaa shubo qofa tabaruc dada shil galay dhiiga la qaadaa lii waa tabarucaysa loo sooman tabarucaysa soonka makaa jibina dhiiga lagaa qaado masalada sidoo kale goos lagaa bixiyo dhiiga imaanaya laftigiisa gooska ma jibiyo gooska isagana soonka ma jibinaya gooska haddii lagaa bixiyo bil ramadaan ama maalin nahaar ramadaan aan leeyahay masalooyinkaas marka waxaa kusoo hor marka walidaalika haddaan niri qofka dabcan markuu dabaalanayo qofka markuu dabaalanayo biyaha ma cabayo maxaa biyaha duu cabo waaba qarqanaaba marka waa iska ilaalina dhagaha waa cuban yihiin sankana waa ilaalina qofka markuu dabaalanayo markaasoo kale isagana weysada soonka ma jibiso sida raajixa ah dabcan madhabka shaaficiga waa jibinaysaa dabaal iyo xataa qubayska wuxuu ku leeyahay biyaha inay kugu fakadaan laga yaabaa walidaalika shayga xataa mararka qaarkood aqwaal waxaa jirto makruuhaat lahayo waa karaahiyo macaan in soonka jibinayaan waa makruuhaat in la dhaho waxaa kusoo haray masalada kale ayadana qofka la suuxinayo suuxiska laba wey mid waxaa jira laysku suuxiyo ama takdiir aan leeyahay takdiirka oo jus'iga ah gaas ayaa qofka la siinaya gaasay jiidaysaa midna waxaa way cirbidaaba xididkan lagu daraa daawo lagu shubaa marka haddiiba daawo lagugu shubay oo xididka sidii ninkii falabada lagu suraya kale meeshaas lagaa suuxiyey soonka waa jaba maxaa daawo lagugu shubay soonka waa kaa jaba suuxiskaas ama kan kale gaaska ah hawo wey waxaa masalada kale oo iyadana khilaafka ka taagan waxay tahay masalada dadka neefta qaba oo daawada baaqaaqda qaata bada qolka raajix waxaa leeyahay ma jibinaa leeyahay maxaa yeelay gaas waa hawo wey hawona wax ma jibiso midda kale joofkii aan sheego oo caloosha gudaha ma gaaraan sanbabay bay ku haraan iyaga halkaasay ku harayaan caloosha ma gaarayaan nacam sigaarka lamid maaha maxaa yeelay sigaarka qofku markuu xataa neeftiisa soo qaado caloosha kasoo daacana waa la garanaa caloosha u gaaraya qaaciis sigaarka waa jibinaa soonka sigaar lama cabi karo baqaaqoo kale maaha qof hadda baqaaqaas hadduu kugu soo neefsado baqaaqi ma ka urinaysid maxaa yeele meeshu ku baabaa hawadiis ama qof sigaar caba calooshiisa urka kasoo go-ayo adiga agtiis ma fadhin kartid marka calooshu waa gaaray qaacaas marka dada waxay ku leeyihiin sigaarkana haddii kan jibin sigaarna ma jibi qiyaas oo diin ah inay wataan marka masalada iska ilaali masalada diin wey nacam sidoo kale masalada qofka suuxa hadduu jus nahaar soon ramadaankii oo weli oo maqribka u dhicin haddii uu soo tooso soo roonaado soonkiis waa u jiraa soo qalaynayo laakiin waxaa jira markii aadaanka maqribka dhammaado kaas khilaafa ka tahay dabcan madhabka maalikiyda wuxuu leeyahay soonka waa hurdo kale qof hurdo kale waa soonka ma jibin qof hurdo la tagto kale waa laakiin qolka jumhuurku waxay dhahayaan soonka haddii uu muddadiisa dhaafo oo soo runaaxo qofka soonka waa ka jabaya waxaa kusoo horta masalada kale kelida la dhaqaayo aydan masalada kelida qolka raajixa waxaa weeye soonka waa jibisaa qofka saddexda maalin kelida laga dhaqaayo keliyaha dadka laga dhaqo saddexdaas maalin soonka iska furaan maalmaha oo kelida laga dhaqaayo maxaa yeelay dhiigaa la bixinaya hadda dhiigaa lagu shubaya marka shubidda gudihii wax laga soo qaado gudaha wax la geliyey ayadana soonka waa jibinaysaa taasoo kale iyadana waa in la ogaada masalada kale ay ku jirto iyadana waxay tahay ama baaritaanka waan ka hadalnay baaritaanka oo hoos la iska fiirinaya ama bawaasiira laga fiiriyay ama waxabaa la sameeyey waxaasoo kale waxaan yidhi gudaha looma xisaabayo
dhiig qaadina waa sheegay. Marka masaa'ilkaas waa masaa'ilkaas leeyahay waa soo naqnaqdaan oo dadka muslimiinta aad ay ugu baahan yihiin, khaasatan dadkeenan Yurub joogo oo dhaqaatiirta iska haasto mar kasta waxyaabaha soonka jibiya amarahaas. Masalada kale oo aan kusoo khatimayo waxay tahay iyadana muhiimka ay tahay soonkaana arkaysaan qofka oo gabadha uurka leh macnaheeda maaha uur inuu soonka jibiyo maaha. uurka markasta wuxuu la saaxiib yahay xanuun. saas daraaddeed ayaa inta badan gabdhaha oo uurka qab inta badan ma soomi karaan la leeyahay. laakiin macnaheeda maaha gabdhow dhan isku mid maaha. saan sheegnay gabar waxaa jirta uurka, walidaalika waxaan idhahaa gabadha uurka leh markasta soonka ha tijaabiso, ha soonto. hadday tacbaan naqato ha iska furto, hadday tacbaan naqanina iyay furin oo soonkeeda ha wadato, ajirkaas faraha badan ayay helaysaa. ama hadday xanuunka u dareento, fuqahada way kala qaadaan. qaarkood waxay ku leeyihiin gabadha uurka leh laba xaale ayay u dhexaysaa. xaalo waxaa weeye inay u furto soonka xanuun ee iyada dareentay, iyo in dakhtarka uu yidhi adiga waa fiican taho laakiin cunugaaga ayaa daciif ah, haddaad soontid oo nafa qaado weyso cunugga waa ku dhimana meesha in la dhaho. oo cunno haddaa qaado weyso oo aad fitamiina isticmaali weydo cunugii waa dhimana la yidhi. marka iyada way fiican tahay, waa soomi kartaa, laakiin cunugga daraadiisay u furtay. xaaladaas oo kale bacd fuqaha waxay yidhaahaan waxaa fiican hadda inay masaakiin wax sii siiso, maadaama labada sababta ay u furto cunugga dartiisa ay tahay inay hadda wax siiso, kadibna markii soonka oo ilaahay uu saqiro ay soo guddo. ilaa qalada mar kasta waa laga rabaa, gabadha qalada waa laga rabaa. masalada kale ku jirto waxay tahay marka gabadha umushidoo kale haddii cunugga u baqdo, inta badan cunugga ayaa naaska ka guraayo, imulaha mar kasta cunugii u baqaan. maxaa yeele umusha ka baxday ayay wax nuujinaysaa. umusha hadday ka baxdana umusha markay ku jirto soon maba laga rabo, maxaa dhiigaaba ka socdo markaa umulay ku jirtaa oo soon waa soo qallayn doontaa. laakiin marka cunugga umusha ka baxda oo cunugga weli nujuska ay ku hayso, cunugii u furtaa daraadiis waxay dhahaan naaskaa guraaya haddaan soonka aan joogo. qaarna way nuuji karaan oo habeenkii inay si fiican u suxuurtaan, suxuur badan ay cunaan, cunugga maalintooda nuujinayaan. hadhowna habeenkini waqti dambe late inay suxuurtaan si ay cunugaas nuujiska u siiyaan maalintii. habeenkiina waaba nuugi karaa oo cunto cunaysaa. qaarna waxay ku leeyihin cunugaan nuujinaya qiil ka dhiganayaan. ha nuugta haddii cunugga marka qiilaa ka dhigatid oo cunugga la yidhaha naaskaa ka guraayo ama saa shuman ku dhacaya waxa la yidhaaho ayadina qallo iyo kafaara ayaa laga rabaa. oo inta maalmo oo soonka yahay ayaad intaasoo miskiin ah siinaysaa. kafaarada kusoo fidyadaan leeyahay, fidyada kusoo hartay. fidyada dadka waxaa iskaga qaldama ayadana inay u maleeyaan inay tahay fidyo soonka in la afuriyo qofka. fidyada dhan inay tahay soon in la afuriyo. soonka in la afuriyo waa fiican tahay, maxaa yeelay sadaqada soonka waa ka ajir badan tahay marka kale. maxaa yeele baahiyaa jirta, sadaqadan markaas oo miskiinka u baahi badan yahay ayay ka ajir badan tahay. laakiin aayaddu waxay leedahay itcaamu miskiin, iftaaru miskiin ma dhihin. itcaam in la quudiyo keliya nin miskiina la doonaya. maalin kasto fuqahadeen hore waxay lagu quudin karay qiyaaseen oo saac iyo nus iyo muddi waxay ku qiyaaseen. laakiin hadda saac iyo ma jirta. hadda qofka waxa weeye waxa dharjiya laga hadla. walidaalika qiyaaska maxay ahayd miskiin hal wajba hal fadhi wax dharjiya ma xataa miskiinka wuxuu maalmo cuno ma aha, wax hal mar dharjiya laga hadlaya. marka hadda fiirisid halka marjo waa zakaatu fitriga oo kale waa $5 wey. marka hal miskiin haddaad qofka oo fidyada bixinayo, fidyadan laba qofaa bixisa sideed ogaada. fidyada qof kasta ma bixiso. qof waxaa bixinaya qof cudurkiisa aan rajo laga lahayn, islaan waayeel ah oo 90 ka gaartay oo aan soomi karin oo la og yahay, qofkaasoo kale fidya laga bixinaa, soon lagama rabo. fidya laga bixinaa maxaa yeelay cumri inay soo yaraato lagama cabsi qabo, soon ay soo bilowdo waa sii weynaanaysaa le. ama qofaa wuxuu qabaa cudur joogto ah oo aan cudurkaas waxaa leeyahay sokortiisa ninkaas heerkaas ay gaartay, ama cudurkaas wax la-aan cuno la-aan ma joogi karo, ama winter haat qaboob ha ahaado soonka ha gaabnaado dadka Yurub joogo ama dadka Afrika joogo isku mid tahay 12 saacadoodba qofkaas rajo lagama laha inuu soomo. qofkaas oo kale waxaa leeyahay fidya iska bixi, waa iska cunaa wixiisa, cudurkiisa waa cudur rajo laga lahayn. laakiin labadaas qof ayaa bixinayso. laakiin qof iyo waxaa bixinaya qofkan soonka iskaaga tegay, soonka ayaa ku gaaro soonka kale iyadoo qallay kartaa soonka kale ku gaaro. waxaa leeyahay fidyana bixi soon qallay qofkaas waa tashadud lagu sameeyey, yani soonkii kasal ugu tagtay, ramadaanka kala ku dhashay. waxaa leeyahay inta maalin oo kugu gaartay fidyadeedana waa lagaa rabaa, waana soo qallaynaysaa. qofkaasna fidya u bixiya. ama xaaladda hadda aa sheego ah qofaa
soonka u furo uur leh cunuga dartiisa dhakhtarka u cabsaday saasay u furtay iyadina fidida bixina waana soo qallayna fiiri fidi iyo qalaa kuwaas laga rabaa ama cunugii daradiisa nuujiskiisa u furtay waxaa leeyahy fidi iyo qalaa laga rabaa mar kasta qalada waa laga rabaa ama islaam waayeel waa qala lagama rabo ama cudurkiisa joogta qala lagama rabo kaasna fidiya laga bixiyey labadaas xaal leeyahay ayaga dhan hadday saas tahay marka waxaan ula jeedaa halkaas hadday saas tahay ha iska saharsan ha dhihin walidaalika waxaa jira dad jiradooda ama soonka aan soomi karin muddadan dheer dararteed yurubay ku noolyihin somalia hadday ku noolaana waa soomi lahaayeen meel oo saacadaha yar laga soomayo si 12 saac si soomaaliya carabta kale oo soomi lahayen laakiin halkan saacadii ku dheeraata sokorna waa qabaa waxaa leeyahay sokortaada intaas gaajo ma ahaan kartid qasab waa inaa cuntaa sokortaada dhacaysa waa suuxaysa waxbaa la yidhi qofkaas oo kale fidnimo bixinaa may fidnimo bixinayo maxaa yeele wuxuu soomaa markuu waqtiga yaraado yurub uu joogaa waqtiga markuu yaraado cunadiisa cunaa hadda wuxuu mariid uu ku jiraa faciidatu min ayaamin ukhar maalinkii qaboobaha la galo oo subaxdii iska quraacdo galabtii la qadaynayo 10 saac 4 galabnimo la iska qadaynayo markaas soo qalayna fidina ma laga raba kaas maxaa dhacay nin jiran waa ka cudurkiisa daawo leeyahay cudurkiisa waa cudur waqti ku xadadan waay waqtiga dheer oo soomi karin maahane waa soomi kariya kaasoo kale marka sadaqa bixi maaha oo hadhow soon la-aan mana soo qalayn qala waa laga rabaa fiirkan qala laga rabaa marka fidida mar qaarkood dadaa lacag iska bixinayo wuxuu leeyahay qalada lagama rabo war masalada waa diin iska ilaali waxaa ku soo hartay masalada kale ayadana muhiimka ay tahay waxay tahay fidiyada miskiinka waxaan yidhi dacaam in la sii wey dacaamka marka waxaan ku qiyaasnay $5 marka haddii aad 30 maalmood islaam waayeel hooyada ah ama qof cudurkeedu joogto yahay oon soomi karin qala laga rabin ayaa waxaa laleeyahay qofkaas bixi fidida saybi maxaa $150 waay shan ama waa ku qaday karaa ama waa ku qaraaca karaa $5 ama waa ku afuri karaa xataa $5 qofkii $5 ama soo maaha 150 kaas neef iyo waxaa ku qashid 30 miskiin wac maalinkaas har irgaan xaaladaasna ku banaantay hal mar weliimo u samay duceyso Soomaali duci dhahaad ay dhahdaa weliimada islaax way ducada nacam idan taasna ka baanta laakiin inaad tiraahid marka haddana aad miskiinki wixiisi aad gaarsiinin inta la raba aad bixinin ama aad tiraahid hebel iyo hebel isla cuna waxaan labadiina isla cuna macquul maaha qofka inuu wuxuu ku dhargi karaa la rabaa fidida طعام miskiinin waa sheegta ayad in idcaamu miskiin ale in la quudiyo nin miskiine quudiskana wuxuu ku xaqiiqo waa qofka wuxuu ku dhargo marka $5 dadka Soomaali jooga hadda qado waa u naqataa waa meesha ugu fiican oo ah marka $150 reena qayrsa ninka 30 maalmood wax bixinaya fidida $150 oo diraya masalada kale oo muhiimka ay waxay tahay ayadana mar kasta masalada qusaysa ramadaanka zakaat al-fitr la iska rabaa ikhwaani idina xalaqo qala ka sameeyay zakaat al-fitriga halkaas aan kusoo koobaya insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh